Waxaan kuu soo gudbi doonaa 4 siyaabood oo aan rajeynayo noloshaada inay wax badan kaa saamixi doonaan. Ilaa iyo dhamaadka muuqaalka waxaan rajeyn doonaa inaad nala joogi doontid si wax badan ugu faa'iidid. Halka aad ka daawanaysid waa Socdaal 24 barta YouTube-ka ku leeyahay. Waxaan rajeynayaa in saaxiibada aad share u sii dhigi doontid si saaxiib adigoo kale aan u helno. 4 siyaabood oo aan saaxiibadii inaan u soo gudbiyo rabo waxay kala yihiin: tilaabada koowaad, qof walba anaga naga mid ah waxa uu rajeeyaa ama waxa uu rajeynayaa mar walba in uu shaqo wanaagsan helo. Inkastoo Soomaaliya marka la joogo shaqada ay aad u adag tahay, haddana qofka markuu dhalinyaro yahay in la aaminana ay aad u adag tahay. Waxaana inta badan la sheegaa in shaqooyinka ay yihiin graduation, haddana waxaa jirta shaqo walbo iyo in ay rabto dulqaad fara badan. Haddii qofku uu dulqaatana uu heli doono. Waxaa la sheegaa inta badan dadka guuleystay in shaqooyinka ay markii ugu horeysay ay ka bilaabeen in lacag la'aan ay ku shaqeeyaan, ama in ay ka bilaabeen in si free xataa ay ku shaqeey jireen. Sidoo kale 3 waqti xataa cunno aysan heli jirin. Marka maanta aad aragto company nin ka qaadanayo $500 ama $1000 ama $10,000, ha la yaabin. Waxaa jirta maalin uusan intaas qaadanayn ayaa soo martay. Waxaana la rabaa marka koowaad ee shaqada aad bilaabaysid wixii company-gaas uu kula heshiiyo inaad yeeshid. Waxaana suurtagal ah adiga oo lagu baahan yahay company-ga in aad ka tagtid. Tan labaad oo qofka looga baahan yahay waxaa kamid ah marka hore qofka inuu noqdo qof aamin ah. Sababtoo ah inta badan shaqooyinka waxaa loo dhiibtaa qof aamin ah. Markaa ku leeyahay waxaa la rabaa 99% in aad kasbatid qofka u shaqeynaysid. Sidoo kale kalsooni fara badan oo kugu qabo, xitaa furaha meesha uu kugu aamini karo. Haddii mar darajadaas aad ka gaartana waxaa laga yaabaa qofkaas boos midkii ugu sarreeyay inuu ku gaarsiiyo. Kan saddexaad ee laga rabo waxay tahay in waqtiga aad ilaalisid. Waqtiga waxa uu ka mid yahay shayada ugu qaalisan ee la rabo qofka in uu ku xisaabtamo. Waxaana la rabaa waqtiga shaqada, waqtiga banooniga, waqtiga musalsalka, waxyaabahaas oo dhan in ay ku kala maareysan yihiin. Tan afraad ee lagaaga baahan yahay waxaa kamid ah habdhaqameed aad u wanaagsan. Bulshada markaas meesha imaanayso in habdhaqameed fiican aad kula dhaqantid. Haddii ay noqon lahayd dhanka soo dhaweynta, dhanka dhaqaalaha, macaamiisha, waxyaabahaas oo dhan noloshaadana wax badan ayay kaa saamixi doontaa. Waxaa ka daawanayseen Socdaal 24. waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah Mahad Socdaal. haddii aad jeceshaa muuqaalada noocan oo kale ah nagu xirnaaw. mar walba waxaa u taaganahay horumarinta naftaada.